waxaan aad u jeclahay inaan guursado laakiin waalidka baa hortaagana waxay leeyihiin wali waad yar tahay oo madaxa burisiga haya marka sheekhu soo macruuf la yidiiday ma aha marka malaha sheekh Mustafa wuxuu ka codsanayaa in waalidka macruufka la faro wax lagu qoslo ma aha runtii waa dhib jirta yani dhibaatooyinka jiray ka mid tahay waayo dhaqamaynu lahayn soo jireena aynu ku soo barbaaray dhaqamada aynu ku soo barbaarnay wali maskaxdeena ku weyn dhibaatadan cusub iyo wadanadan cusub ay nimiyo mushkilaadkan isbedelay iyo dadkan hore u qaan gaadhay iyo waxan tirada badanna ka bayna fakirin iyo bulshadan la luminayo lumitaanka la daba taagan yaani ninkii waagi hore Soomaaliya ku koray xumaba intuu arkayay baa yaray sida daraadeed inan iyo inanba hadda iimaankooda iska qaban gurigooda way iska joogi karayeen waayo dhibba may qabin laakiin halkan marka TV-gii suuqii mujtamacii iskuulkii wixii oo dhan uu fitnay wixii oo dhan uu imtixaan yahay imtixaanka qofka ka badbaada waa qof khatar ah runtii waa imtixaanka cidda ka badbaadana waa cid khatar ah waliba waa imtixaan dhalinyaro qofkani u yahay marka oo isaga jirkiisii iyo psychological iyo biological iyo qaab walba uu soo buuxsamayo oo thawraan burkana uu soo qarqarxayo halka qofka inuu sii gaboobayo oo xagga kale uu sii socdo mujtamacana waliba isagu ixtikaak tira badan leh loolan tira badan leh ku dhex sameeynaya sida awgeed waxaan leeyahay ilmaha waraaqda soo qoray iyo ilmayo kalaba rag iyo dumarba waxaan leeyahay war wixii loo guurin karaa loo guuriyo ilmahaadiyo la waa guursanaya oo guursan karaya rag iyo dumarba ku yahay loo guuriyo baa qaba intuu xuma ku dhici lahaa ama hadhow farta dhexda laga qaniini kari lahaa hadduu wanaag barraadinayo in wanaaga lagu taageero ayaa meesha taala wanaaga lagu taageero ayaa meesha taala waalidkana waxaan leeyahay sidii markaynu Soomaaliya joognay aynu waxaan u fudaysan jirnay inaan u fudaysanin dhalinyaradu aad waxaan u taageersanay intay da'yariin in loo guuriyo aad u da'yariin yaani fitmoobin imtixaanka ku dhicin in loo wada guuriyo waxaan isleeyahay albaabadii sharka nus baynu awda nabiguna salawaatu Allahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay qofku imraa saalixa ninka hela waxa loo dhameystiray buu nabigu yiri diintiisii nuskeed yani nin iyo gabadhii isguursada diintoodii nus baa loo dhameystiray buu nabigu yiri nuska kale ilaahay uu kaga cabsadaa idan qofka ina diintiisii nus dhan ilaalisa weeyaan inaad u guurisaa marka waxaan leeyahay mas'aladan yeena fudaysanine aad aan uga feejignaano waliba waalidiinta la hadlaya dadka waalidiinta ilma dhalay aad aan uga feejignaano oo cid allaaliya cid ay noo guurin karina baan u guurino wallahi